السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaa idin salaamay asxaabta ku xiran channelka Gamaadid. Meeshan muddo waan ka maqnaa, waana ka cudur daaranayaa runtii inaan inta sidan ka maqnaado. Almost 2 bilood camal ayaan ka maqnaa. Wax kale kuma maqneen, jaamacad sanadka ugu dambeeyay ayaan ku jiraa masterka. Sidaas darteed ayaan u mashquulay projectyaal iyo waxyaabo badan ayaa sameynaya oo ku mashquulsanaa. Balse hadda waan soo laabtay. Insha Allah muuqaalo badan oo idin soo gudbin doona haduu Ilaahay yiraahdo. Maalintii waxaan soo dhigay qaybta community-ga waxaan soo dhigay inaa wixii su'aal ah qabtaan ay weydiisaan. Saas darteedna muuqaalkan waxaan uga jawaabayaa su'aalahaas ay soo weydiisaan ee daawasho wacan. Su'aasha koobaad waxay leedahay software engineering iyo software developer maxay ku kala duwan yihiin ka soo hadal walaal. Horta software developer iyo software engineering labadaba haddii aan kala qaadno software engineering-ka horta waa aad ay u weyn yahay. marka software development ama software developer-ka wuxuu hoos imaanayaa ama waa qayb kamid ah software engineering. marka software engineering waa qayb waxa way bigger picture-ka waaye oo mataqaanaa wax walba oo ku saabsan software-ka dhisidiisa, design-kiisa, dhisidiisa iyo testing-kiisa ku saabsan ayuu qaabilsan yahay. project-kan ayuu mas'uul ka yahay. halka software developer-kana uu shaqadiisa ay tahay kaliya qayb kamid ah project-gaas. tusaale designing oo kale inuu mataqaanaa software-ki ama application-ki uu design gareeyo, sidoo kale inuu client-ki ama qofkii loo sameeyo software-ka inuu si toos ah la xiriiro oo uu weydiiyo sidoo wax u rabo kadibna waxaas loo bedelo design oo mataqaanaa uu shaqada halkaas uu ka qabto. marka software engineering-kan waxa project-ki inuu mas'uul ka yahay haday noqon lahayd wuxuu ninkan soo design gareeyay inuu fiiriyo, sidoo kale testing-ki, sidoo kale development-ki waxyaabahaas oo dhan ayuu mas'uul ka yahay. marka software developer waa qayb kamid ah software engineering. waxaan rajaynayaa inaan su'aashaas kaaga jawaabo. su'aasha xigta haddii aan u guda galno waxay leedahay fiisooyinka jaamacadaha India fiisooyinkooda ma naga caawin karta ayuu yiri qofkan. magaciisana waxaa la yiraahdaa waa channelka xogaha. fiisooyinka India ma naga caawin karta walaal. horta ardayda markii anaga waxaan ka caawinaa admissionada sidii ku heli lahaayeen. shirkad ayaa jirta ka shaqeysa arrimahaas oo aan leeyahay oo Gamaadid Solutions la dhaho, arrimaha admissionska ee jaamacadaha sida Hindiyo iyo Qubrus. marka anaga admissionka ayaan u soo saarnaa qofka, kadibna admissionka markuu helo Hindiyo fiisaha waa inuu ardayga raadsadaa. waagi hore 2018 ka hor waxaa jirtay in qofka asagoo Soomaaliya jooga ama Kenya joogo ama meel kale joogaba in loo soo saari karo fiisaha asagoo na tagin safaaradda, laakiin waxay qasab ka dhigeen in qofka fiisaha uu asaga raadsada ardayga ah oo uu safaaradda u tago. marka dabcan looma soo saari karo qofka asagoo maqan, waa inuu ardayga uu safaaradda tagaa Hindiyo. safaaradda Hindiyo waxay ku taalaa Addis Ababa hadartaan. haddii aad Soomaaliya joogtid dabcan meelo kale way ku taalaa wadamada dhan oo Afrika. marka halkaas inaad tagtid adiga raadsatid ayaa mataqaanaa qasab ah. marka saas darteed anaga admission ba ka caawin karnaa, laakiin fiisaha kama caawin karno, waa inaad adiga raadsata. gabadhan kale waxay tiri Queen of Dance scholarship free ah ma helaya Hindiyo. Hindi ma ka helaya scholarship free ah. dabcan horta horena u sheegay Hindi scholarship free ah ma bixiso. way bixisaa sida kale markii loo fiiriyo, laakiin waxay ku bixisaa system dawladeed ay ku bixisaa. tusaale dhanka dawladda waxaa jirta dawladaha inay siiyaan scholarship free ah. marka systemka dawladda baad soo mari kartaa, laakiin qof shakhsi ah mataqaanaa scholarship iska xareysan karo intuu meel tago ma jirto. kaliya systemkaas dawladda in aad ka soo martid oo halkaas aad scholarship-kaas Hindi free-ga aad heshid baad ku heli kartaa scholarship free Hindi. balse qaab kale oo adiga kaliya aad raadsan kartid ama qof kale oo shakhsi ka caawin kara ma ahan, waa system dawlad inaad soo martid. qofkan kale xiga wuxuu soo qoray isagana waa Cabdisalaam Maxamed. su'aalo badan ayuu soo qoray Cabdisalaam, waxaan rajaynayaa dhamaantood bal aan dul maro. marka koowaad wuxuu leeyahay maxaa kugu dhacay muddo video maadan soo gudbin. horta ahad ayaan uga xumahay, muuqaalka bilowgiisana ku sheegay arrimaha jaamacadda oo ah sanadkii ugu dambeeyay ayaan ku mashquulay muddooyinkii ugu dambeeyay 2 bilood. saas darteed ayaan u maqnaa. dabcan waa jeclanaa muuqaalo soo sameeyay balse way ii suurtagali weeyday, waana ka xumahay. ma ku dhamaaday masterku yiri may sanadkii ugu dambeeyay aan ku jiraa. su'aasha saddexaad waxay tahay waxaa la sheegay arday Soomaalida waxbarashada dibadda markay aadaan tusaale ardayda kula kalaaska ah inay hooseeyaan xagga waxbarashada ama grade-kooda waxooda inay hooseeyaan. dabcan horta waxbarashada Soomaali la'aanba waxay ku xiran tahay dadaalkaaga. qof Soomaaliya oo dadaal badan waa jira, qof Soomaali oo dadaal badneedna waa jira. marka dabcan lama dhihi karo Soomaalida dhan ma dadaal badno, dabcan dad dadaala way jiraan, laakiin shakhsiga ayay ku xiran tahay. marka ma judge gareyn karna anaga ma dhihi karna Soomaalida dhan ma dadaalan waxan bartaan. dabcan qofka shakhsiga ayay ku xiran tahay. inta aniga arkayna way dadaalan Soomaalida. marka taas waxaan leeyahay sidaas weey. su'aasha afraad waxay tahay ardayda Soomaalida markii dibadda waxa ay ka soo bartaan maxay wadankooda ugu soo laabtaan.
oo ay shaqo ugu soo raadsadaan uu yiri maxay wadamadaas ay wax ka soo bartaan wax uga shaqaysan la'ayiin waa su'aal fiican kow horta wadamada qaarkood waxaa jiro aan ardayda u ogoleen inay shaqaystaan sida hindiya oo kale hindiya hadda arday tahay oo fiisa ardaynimo aad ku joogtid ma shaqaysan kartid marka si sharci ah kuma shaqaysan kartid marka taas waa qodob koobaad qodobka labaad waxaa laga yaabaa inaysan shaqooyin helinba oo wadankaas laftirkiisa uu asaga uu jaam isku yahay oo isku badan yahay saas darteedna fursad uusan ka dhex helin qofkan taasna waxay kalifaysaa inuu wadankiisa uu doorbido inuu shaqo u soo raadsado maadaama uu wax soo bartay wadankiisa wax ku soo celiyo wadankan ay u fiican tahay dhalinyaro wax soo bartay inay mararka qaar ay wadanka ku soo laabtaan ay wax ka qabtaan way fiican tahay waa arrin fiican marka taasna sidaas weeye marka mis inuu wadanka shaqo uusan u ogoleen ama inaysan ka heli waayaan shaqo wadankaas isaga ah ama qofka inuu jecel yahay inuu wadankiisa uu ka shaqeysto oo fursadaha wadanka yaalla ay ka badan yihiin kuwa wadamada kale yaalla marka taas ayaa keenayso inay wadanka kusoo laabtaan marka su'aalihiis intaas ayay ku egyihiin waxaan rajaynayaa kaaga jawaab su'aalaha oo dhan Cabdisalaan waa maasan tahay qofkan kale wuxuu yiri walaal ka soo hadal safaaradaha ugu wanaagsan ee laga maro dabcan waxaan u mareynayaa okay DV lottery uu ka wadaa horta arrimaha DV lottery-ga safaaradaha laga maro xogtoos ma ka hayi laakiin sida aan ku arkay meediyaha dadka qaar safaaradaha waxay amaaraan hindiyo oo hindiya ayaa fududay dhahaan dabcan wadamo kalena way jiraan laakiin ma xasuuso dartaan marka hindiya waa kamid wadamada fudud oo mataqaana aad ka xariisan kartid fiisahaaga hadii lottery aad ku guuleysatid sidoo kale dadka lottery ku guuleystay sanadkan hambali ayada in leeyahay insha Allah nolol wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ay idin rajeynaa processka inta hartan Allah idin fududay inta guul dareysatay sida anigoo kalena waxa leeyahay ha isdhiibina isadkay insha Allah jaanisku mar kale soo laabanaya waana guuleed idin rajeynaa qofka kale wuxuu leeyahay qaabkee ayaan ku baran karaa cyber security online ahaan ma ku baran karaa ayuu yiri intee ayaan ka baran karaa horta online ayaad ka baran kartaa cyber security qasab ma inaad class tagtid adduunyada ay horumartay wax walba online ayay ku jiraan haddii artin af Soomaali ku baratid waa helaysaa koorsooyin af Soomaali ah oo cyber security ah sida koorsada halkan shaashada saaran oo uu sameeyay Mobin waxaana ka heli kartaa website-ka Share Xirfad linkigana qaybta hoose ayaan soo dhigi doonaa waa koorso cyber security af Soomaali ah oo mataqaana basic cyber security oo dhan kugu fahansiinayso networking-kiisi iyo wax walba aad uga baahan tahay inaad cyber security-ga filiyaas aad gashid ayadoo af Soomaali ah koorso aad u qiimo badan ayuu ka sameeyay waxaan rajeynayaa inaad koorsaas aad soo qiimeysid aad tijaabisid aad iibsatid kadibna halkaas aad ka sii janqaadid barashada cyber security wuxuu yiri sidoo kale muddo intee laga igu qaadan kartaa inaan barto muddada ay kugu qaadan kartaa cyber security dabcan waxa way horta field aad u weyn ugu yaraan 6 bilood ilaa ay sanad iyo wixii ka sii badan basic inaad si fiican aad u fahanto asaaska ilaa 6 bilood ay kugu qaadanay kadib inaad sii guda gashidna sanad iyo wixii ka sii badan ay kugu qaadanaysaa marka taas way sidaan jeclahay waxaan rajaynayaa su'aasha ka jawaab marka qofka xiga wuxuu yiri waxa iga soo jawaabtay walaal xifrada blogging-ka ma laga helaa lacag sideena looga sameeyaa inay taan jeclahay su'aasha ma laga helaa lacag waliba sida ugu haboon okay blogging horta lacag waa laga sameyn karaa waa hadii aad la imaadid fikrad fiican oo aad blogging ka sameeysid ama waxa ka soo qortid dadkan blogging ka aqoonin waxa waaye inaad website sameysatid kadibna website-kaas aad article ku soo qortid article-daas ku soo qoraysid aad website-kaaga oo dad badan uu gaaro oo dad badan aad heshid inay soo boqdaan website-kaaga xayisiin ayaad saaranaysaa oo Google AdSense ah markaad xayisiinta saaratidna booqashada ku soo booqanaya xayisiinta si arkayaan ayaa lacag ka sameynaysaa sidaas ayaana blogging lacag looga sameeyaa marka waxay ku xiran tahay waxa aad ka hadlaysid iyo sida aad u heshid dad badan oo visitors oo website-kaaga soo booqdo dabcan lacag waa laga sameyn karaa lacag ka sameeyna way jirtaa su'aasha ugu dambayso kan Muxidiin Cabdullaahi waaye dhowr bilood ka hor comment-kan soo qoray qof kale ayaana yiri anigana su'aashan oo kale aan qabaa marka haddii aan uga faa'iideeyo waxay leeyihiin ma ka soo hadli kartaa caafimaadka qaasatan masterka hindiyo horta hindiyo ma bixiso ama ajaanibta inta ogahay ma siiso caafimaad ma siiso oo ma barto haddii noqon lahaa master haddii noqon lahaa badge haddii noqon lahaa wax walba oo caafimaad ku saabsan ajaanibta ma la siiyo badana haddii la siiyo criteria adag jirto oo la soo maro imtixaano adag ayaa jira oo loo maro iyo process badan oo adag oo loo maro jira laakiin sida maadooyinka kale ma fududo oo ma la helo marka taas waxaan rajaynayaa kaaga jawaabay aad ay u mahadsantahay hadda halkan soo gaartay daawashada muuqaalka channelka wili subscribe hadaan saarin fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si muuqaalada aan soo dhigo ay ku soo gaaraan waa ku mahadsantahay saad ugu xirtay channelkan teenkay wax yar ayaa nooga haray insha Allah inaan gaarsiin ayaan rajaynayaa intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo